السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان مدة الصومالية ميل بد عالم كجوكتان وورالكين محمد فارح سيدا وقتين waxaa soo gabagaboway xajkii sanadkan Allah ka aqbalo xujayda dhammaan muslimiinta ah ee ku soo xajisay oo gaaraya ilaa 2 milyan ilaa 3 milyan oo muslimiin ah. Allah ka aqbalo waxa ku dhimatay lahuba hadeerta 2 qof oo Soomaali ah. الله ما تقنا جنة الجيل لوضع أسقفه الله ونحرس ذنبي جودي ذنب والدنا الله عافيه وعرب ما أنت إن كهد الله لبعته ما أنت صوشع بحدي ولقينا على درجتي سيدا عركتين وحاجر حجي صوماليات أم حجي الصومالية كإماضو ووضن كصومالية كصوب دمانتيس وحج كإماضو إني آدي آدو دباتي سيهين فيديو يال عن داوضي مانتا dad aan wacay xajka joogo ay xaqiijiyeen dhibaato aad iyo aad u weyn inay haysto ummadda Soomaaliyeed oo ka imaaday Soomaaliya. qofka Soomaaliga oo sanadkan xajinaya waxa laga qaaday lacag dhan 3300 ilaa 3800. 5 diyaaradood ayaa qandaraaskaas ee dowladda federaalka ee Soomaaliya siisay waa Juba Airways, Dalo, Ocean, African Express iyo Freedom. 5 diyaarad ayaa xujayda Soomaaliyeed qaadaysay oday Soomaali ah oo magaciisa la yiraahdo Maxamed Cabduqaadir Ibraahim ayaa video hadda iska soo duubay cabanayo qeelinayo. odayga wuxuu ka imaaday Xamar. Maxamed Cabduqaadir Ibraahim baa la dhahaa. wuxuu yiri waxaana la dejiyay markaan Maka imaana xajka 4 kilomitir meel xajka u jirto oo ka fog hoteelo dayactiraneen oo haleysan oo mataqaana air conditioner lahayn markaan Musdalifa iyo Mina aanana dhaxdooda ayaana la dejiyay meel barxad ah oo banaan ah oo cidla ah cuntana lama siineenin jiifkeena laga warqabin agency-yaashina soo qaadanana ma tixgelin wax ay noo sheegayeen male service xun bayna siinayeen. Maxamed Cabduqaadir Ibraahim baa lahaa waxaan ka cabanayaa buu yiri Juba iyo Dalo Airlines oo na soo qaatay nagu daaraysa meeshan fadlan sumcadooda ha eelsadaan yiri. waa video laga duubay waxay ku jirtaa mataqaana in hadda daawatan garow online ku jirtaa website-keeda asagoo odayga calaacalayo dhahayo mid loo dul qaadan kara maaha. sidoo kale waxa ayadana dhacday maanta waxa video soo duubay Sheekh Cabdirasaaq Toocil oo Seattle Washington ka tagay Mareykanka ayaa booqday Soomaalida meeshay degan yihiin 141 wadan walba xajka markii la tago waxa la dejiyaa meel gooni ah calankoodana waa laga taagaa. Sheekh Cabdirasaaq Toocil oo ka tagay Seattle ayaa u tagay Soomaalida video uu iska soo duubay wuxuu ku soo arkay oo na tusiyayna waa wax aad iyo aad u fiican qashin qubka ayagoo Soomaalida daadsan ayagoo cunto aan haysan ayagoo oo xataa teendooyinkii mina loogu talagalay aan la dejinin minana aan la dejinin meel cidla looga tagay. dadkaas lama train gareen wax looma sheegin agency-yaashii iyo wadaadadii la socday way ka beec mushtareen kaliya lacagta ka qaateen waa lacagta Afrika ugu qaalisan oo qof xujay ah laga qaado. Sheekh Cabdirasaaq wuxuu appeal gareeyay ama codsaday in dadkan la caawiyo mar dambana ay arintan dhicin. arintan 91 ilaa hadda dhaceysay laakiin marba mar kale way ka sii dareysaa. waxa sidoo kale aan aniga wacay saaxiibkay Deeqay asaga ay soo wacay shalay wuxuuna ii xaqiijiyay oo Minneapolis ayuu ka tagay wuxuuna ii sheegay Maxamed oo waxaan tagu yiri meesha Soomaalida xujayda caloosha ku horeyso jidadka iyo darbiyaasha jiifan ayaga oo air condition hotel aan jiifin teendooyin aan jiifan cuntana aan haysan xataa lama tababaro looma sheego acmaasha xajka ay gudanayeen iyo meesha marayaan lacagtun baa laga rursado meel lagu daadiyay. intaas oo qof ah oo xaqiiq ah ayaa ka jirto sawirada Facebook iyo social media YouTube iyo warbaahinada dhaxyaacay videoyaashan oo aragteen. arintan 5 shirkadood oo xaraanta ku heesato qaasatan Juba iyo Dalo 91 ilaa hadda ku heesto wax waa laga qabanayaa. arintan waxa bixisay qandaraaskan siisay dowladda federaalka Soomaaliya qaasatan wasaaradda diinta iyo awqaafta arrimaha diinta iyo awqaafta dowladda federaalka Soomaaliya iyo waxaan la hadlayaa culimada Soomaaliyeed qaasatan culimada Soomaalidan ku hormaro oo hogaaminayo Sheekh Umul, Sheekh Mustafa, Sheekh Maxamed Idris iyo dhammaan culimada Soomaaliyeed oo sanad walba xajka tago
dhibka ummadda Soomaaliyeed heesana arko agency walbaba markuu dadka qaadayo wuxuu dhahaa waxaan ku agdajinayaa shaqaashaas ayaa ku wacdinayo shaqada dhibka way arkaan waxaa laga rabaa in agency-yaasha la hadlaan inay u sheegaan runta ay dhahaan war ummadda Soomaaliyeed waxaan nahay adduunka 196 wadan xajiyo wadan kastoo dadka Soomaaliya ka yimaada keliyana ugu dayacan ugu xun meeshay degan yihiin waxaa laga rabaa wadaadada inay qaybtooda qaataan arintan waa arintooda fiilkan waa fiilkooda shaqadana waa shaqadooda inay agency-yaasha la hadlaan dadka hoteelaha la dejiyo u dhow xajka ka soo lugan karaan cuntaha la siiyo baskooda hala saaro mina markii la geeyna banaanka yaa lagu daadinne teendooyin ha loo xiro air condition hotel la dejiyo wadaadada Soomaaliyeed aqwaan iyo suufi iyo xirba ummadda agency-yaashan tuugada ah dadka dhacayo hala hadlaan hana u sheegaa runta hana faafiyaan halaga qabtee midda labaad arinta kale xalq u baahan waxaa waaye oo powerka iska leh dowladda federaalka wasaaradda diinta waa inay ka revogareeyaan laysanka Juba Airways iyo Dalo Airline oo dadkan ayaga ah qandaraas ku haysta ay siiyeen 3,300 ilaa 3,800 baa laga qaaday qofka Soomaaliya muwaadinka Soomaalida waxaa laga yaabaa odagaas iyo hooyadaas Soomaaliyeed inay arigeedii gaday loodeedii gaday geeleedii gaday 40 sano 50 sano ee aruurinaysay ama uu odayga aruurinay sidoo hal mar xajka ku aado sida Maxamed Cabdiqaadir Ibraahim oo oday weyn waxaa laga yaabaa lacagtaas inuu intuu cimrigiisa dhan jiray aruurinay in haddana service qaali ah intuu lacag ku bixiyay haddana aan service loo waa xaaraan maqtaca waxaa laga rabaa dowladda federaalka inay shirkadahan revogareysa laysankeeda sanadkan way dhacday 91 ilaa hadda xaanaan cunayeen 5 shirkadood qaasatan Juba iyo Dalo inay ka qaadaan laysanka shirkadooyin kale ee siiyaan midda kale maxay qabataa safaaradda Soomaaliya ee Saudi Arabia safiirka Soomaaliya waxaan waa shaqadiisa waxaa laga rabaa 141 meesha Soomaaliya deganta inuu ka shaqeeyo shaqaalaha inay u shaqeeyaan safaarad maxay tahay safaarad waa inay u shaqeyso ummadaas wadankaas joogto inay u shaqeyso waay inay agency qaldan ee qabato ee ka hor imaado ee dacweyso laga qaado laysankeeda waay safaaradda Soomaaliya ee Sacuudiga waa in laga qabtaa musuq adduunka ugu weyn ma jirto guriga Ilaahay xajka Ilaahay beedka Ilaahay lagu suubiyo shirkadooyinkana waxay ku suubinayaan bahdilayaan ummadda Soomaaliyeed oo muslimiinta ah xajka Ilaahay gudanayeen ay lacag badan intay ka qaateen bay hadana dhacayaan dowladda federaalka Soomaaliya qaasatan mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo mudane Xasan Cali Kheyre haday daacad idinka tahay corruption-ka aad la dagaalameysaan corruption ka weyn ma jirto guriga Ilaahay lagu suubiyo wallahi billahi tallahi inaysan jirin corruption ka weyn guriga Ilaahay lagu suubiyo guriga Ilaahay shirkadooyinkan corruption ka suubinayo inaad laysan ka qaadaan dhammaantoodna aad maxkamad aad soo taagtaan waay refund waa inay u suubiyaan xujiyada Soomaaliyeed dhammaan in lacagtooda u celiyaan waay shirkadahan in lacagtooda u celiyaan xujiyada Soomaaliyeed oo sanadka xajiday ya service wax loo qabto male 91 arintaas soo socotay sanad walba inaan daawan weyno ceebta iyo fooxashada iyo sawirada iyo fiidiyoyaasha naga soo gaaraya xajka inaan daawan weyno wallahi wallahi waxa maanta daawaday iyo sawirada arkay jidka qashin qubka sida chokoraaga ama jiddiifkeesa dadku u taageen hablo iyo niman wallahi oo privacy xataa aan jirin iska daadsan yihiin arintaas condition jiran cunto dadkii cabanayaan video la sawir been wax la abuuray maaha waa proof wallahi billahi dowladda federaalka Soomaaliya haday corruption daacad idin ka tahay Kheyre iyo Farmaajo haday daacad idin ka yihiin xujeedan Soomaaliyeed waxaa laga gala qalad weyn waana xaraan shirkadooyinka Dalo iyo Juba ka gashay ka qaada laysanka ka qaada mar dambe iyo umada xajinin maxkamadaha la keeno ummadda Soomaaliyeed oo sanadka xajisana lacagtooda loo celiyo haday daacad idin ka tahay corruption-ka shirkadooyinkan Dalo iyo Juba waxa iska rag baarlamaan ku jiro ganacsatooyina leh la xisaabtama 91 ilaa hadda ummadda dhacayeen midaan mid loo dul qaadan karo lagu socon karo maaha dowladda federaalka Soomaaliya arintan sharci taaga haday daacad idin ka tahay xukuumadda nabad iyo nolol corruption ala dagaalameysaan corruption-kii ugu weynaa with proof cadeen rasmi ah waatana
fadlan gaarsiiya arrintan faafiina videogan dowladda federaalka soomaaliyana waxaa laga rabaa inay ka hadasho lana xisaabdaale iyo jubba iyo shirkadooyinkan kale wadaadada ummadda soomaaliyeed sheekh umul sheekh mustafa sheekh maxamed culummada waaweyn iyo dhammaan culummadan kale magacooda sheegin waa inay ka dhidhiyaan ka hadlaan arrintan ma aha inay sanad bita xaj ka tagaan dadka inta u waxyaan fiiriyaan meesha degiin waa inay ka hadlaan la xisaabtamaan shirkadooyinka fiilkan waa fiilkiina السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.